waxaan isugu nimid maanta halkan isugu yimid guddiga qabanqaabada ama abaabulka banaanbaxa nabadeed ee lagu ballamay inaan ka dhigno magaalada Muqdisho 6 bisha Maarso oo ku aadan maalinta Sabtida ah ee soo socota ama maalin kaliya ay naga xigto hadii ay beedmo banaanbaxan sida aad la socotaan waxa qabanqaabinaya ama dhigaya oo aan rabaa inaan cadeeyo runtii midowga murashaxiinta u taagan madaxtinimada ama xafiiska ugu sareeya dalkan u taagan iyo taageerayaashooda ayaa dhigaya iyagaana qabanqaabinaya iyagaana abaabulaya in la idin qaldam ahan in dadkuna la qaldam ahan kadib markii ay la soo gudboonaatay xaalad hubanti la'aan ah oo dalkooda la geliyay dawladdii waqtigeeda dhamaaday iyo hoggaankeeda ay geliyeen ayay ka dhiidhinayaan taasay marka u taagan yihiin iyagaana qabanqaabinaya kaalinta laga rabo dawladda ama xukuumadda ama hay'adaha u xil saaran xagga nabadgelyada waa inay sugaan oo kaliya amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed ee isu soo bixi doona maalinta Sabtida ah waxaan rabaa shirkeena uu ku saabsan yahay oo aan rabnaa inaan la qaybsano bulshada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo daafaheeda ee u diyaarsan inay ka soo qayb gasho banaanbaxa ayaan rabnaa inaan siino direction ama jihooyinka ama habraaca loo qabanayo banaanbaxa nabadeed hadii ay beedmo banaanbaxa wuxuu ka dhacayaa barta kulanka banaanbaxa uu ka dhacayo ee la cilaamiyay waa daljirka Dahsoon halkaas ayaan isugu tagi doonaa waxaan leenahay intaanan meesha tagin waxaan ka soo dhaqaaqaynaa hadii ay beedmo aan ku kulmaynaa dhammaan ma aragtay dadka ka qayb galaya banaanbaxa qolo kasta ama group kasta waxaan u sameynay bar kulan ay ka soo dhaqaaqdo oo ay ku kulmaan ayna ka soo dhaqaaqaan number 2 waa isgoyska Fagax number 2 waa Marinaayo number 3 Sinai number 4 kilometer 4 ama number 4 bointiga shanaad ama goobta shanaadna waa Soobe halkaas ayaan ka kala imaanaynaa oo aan ku kulmaynaa kadibna waxaan u dhaqaaqaynaa u jihaysan doonaa hadii ay beedmo daljirka Dahsoon halkaas oo aan ku muujin doono dareenkeena iyo diidmada aan diidanahay xaaladda hubanti la'aanta ah ee xagga doorashooyinka la geliyay dalkeena waxaan ku dalbanaynaa in dalkani ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay la isku raacsan yahay la isku ogol yahay inay dhacdo oo qof kasta iska dhax arki karo oo daah furan weeye waxaan dalbanayno wax kale ma ahan banaanbaxu waa banaanbax nabadeed banaanbax silmi ah qodobka 20aad ee dastuurka farqooyinkiisii koowaad iyo labaad ayaa ku baneeyay qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ahna wuu u baneeyay marka waxa la idinka rabaa inaadan waxba burburin inaadan rabshad sameeynin inaad si rasmi ah goobtiina isugu urursataan oo nabad ah silmi ah kadibna aad u jihaysataan halka aad u socotaan ayaa la rabaa rabshad ma jirto waxba lama tuuriyaynayo hub ma wadano kaliya waxaan wadanaa boorarkaas iyo stiikaradaas ayaan wadanaa oo ka tarjumaya waxa aan rabno aan diidanahay aan ka soo horjeedno ay ku qoran yihiin ayaan wadanaa taa waa intaa loo ogaadaa sida aad la socotaan waxaa jira taxadir xagga faafitaanka cudurka safmareenka ah ee COVID-19 ayaa jira iyadoo cudurka safmareenka uu jiro ayaa haddana waxaa laga rabaa inaan banaanbax dhigno aan samayno oo aanan ma aragtay ii sheeg xuquuqdeena aanan uga tegin taa cagsigeedana aan iska ilaalino ama aan xakamayno faafitaanka cudurkan guddiga abaabulka ama guddiga qabanqaabada banaanbaxa waxay sameeyeen diyaar garow aad u ballaaran oo ku saabsan xagga caafimaadka waxaa la diyaariyay ama qof walba laga rabaa inuu soo qaato face mask ama maskaraha wajiga
ama afka iyo sanka si aad ugu xirato inaad soo qaadato ayaa laga rabaa waxaa la diyaariyey goobahana lagu diyaariyey sanitizerskii gacmaha lagu dhaqanayay ee alcoholka ahaa ayaa ku diyaarsan goob walba oo shanta goobood aan soo sheegay kamid ah ayay ku diyaarsan yihiin marka qof walba waa inuu maaragtay isha gacmaha iska soo dhaqaa waxaa jiri doona team ayaa jiri doona oo bahalahaas wadi doona oo dadka gacmaha ka dhaqi doona meelaha qaar oo daljirka ay ka mid tahay waxaa laga samaynayaa fuustooyin waaweyn oo dadku isaga dhaqi karaan si banaanbuxuna u socdo aan hawshana maaragtay la isugu xayirmin haddii eebeedmo qof walba waxaa laga rabaa in uu soo xirto face maskas gacmahana uu iska dhaqo qofku ugu dhow oo bahashaas alkulada wado maaragtay inuu u dhaqo ayaa la rabaa meelaha boytiska muhiimkana waa ka samayn doonaa insha allah waxaa kaloo la rabaa waxaa kaloo jira oo aan rabnaa inaan dadka la wadaagno waxaan diyaarinay transportation ayaan diyaarinay baabuuro ama gaadiid dadka qaadi doona ayaa jira gudiyada loo sameeyey qaybahaas oo laga soo dhaqaaqayo ayaa runtii aad kala xiriiri doontaan waxaa kaloo jira xagga caafimaadkana sidoo kale waa ka taxadirnay maadaama zaxmad weyn iyo dad badan oo meesha laga yaabay maaragtay inay isugu soo baxaan oo kumanaana ah waxaan ka taxadirnay xagga amniga xagga caafimaadka waa ka taxadirnay waxaan diyaarinay ambulances ayaa jiri doona oo haddii xaalad maaragtay caafimaad darro ama ay wax dhacaan inkastoo banaanbuxu ay dowladdu ogolaatay xaqna aad u leedihiin haddana maadaama dad badan ay u sii imaanayaan ambulancesna waa ku talagalnay oo ay la socdaan dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad runtii marka taana maaragtay ii sheeg kuwaasna way jiri doonaan guddiga qabanqaabada ama abaabulka ayay ka si dhow uga ag shaqayn doonaan haddii ay beedmo si loogu diro meeshii ay wax ka dhacaan ma rajaynayno runtii inay wax dhacaan laakiin waa taxadir waxa ugu muhiimsan marka waxaa waaye in aan ogaano inuu yahay banaanbax silmi ah inuu yahay banaanbax nabadeed in dowladdu ay ogolaatay in lagaa rabo inaad soo xirato face mask in gacmaha iska soo dhaqdo in maxay ahayd ii sheeg aad timaado barta kulan ee xaafadaadii ama degmadaadii dadka lagu beli ka soo dhaqaaqayso ay ku kulmayaan kadibna aad wajahdo haddii ay beedmo daljirka dahsoon